tababarkan oo si rasmi uga furmay xerada municipal oo ku taala caasimada wadankan Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan xaafadda lixaad ayaa waxa uu socon doonaa muddo 7 cisho waxaana ka qayb qaadanaya ilaa 26 garsoore oo isugu jira garsoorayaal caalamiya iyo kuwa gudaha intaba waxa tababarkani sidoo kale goob joog u ahaa mas'uuliyiin ka socotay ururka kubadda cagta caalamiga ee FIFA waxaana kamid ah Axmed Shalaawi oo isagu bariga Afrika u qaabilsan dhinaca tababarista garsoorayaasha ururka kubadda cagta ee FIFA tababarkan ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Axmed Yaasiin oo isagu gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta ee wadankan Jamhuuriyadda Djibouti waxa uu goobtaasi ku soo dhaweeyay madaxda ka socota FIFA iyo waliba garsoorayaashii ka yimid Soomaaliya nako rajeynayna in maaragtay ay Soomaaliya nabadu ay boqolkiiba soo noqoto si ay halkaasi Muqdisho dhexdeeda ama Soomaaliya dhexdeeda noocyada tababarkan oo kale lagu soo gudbiyo anagu waxaan leenahay soo dhawaada aqalkiinii hooyay labaad baa joogtaan gacmo furan ku soo dhawaada leenahay markay baahi timaadaba walaalaheen nooga timaadaba anagu kuwi garab joogsanay ayaan nahay anagoo tixgelinayna siyaasadda madaxweynaha Ismaaciil Margeele iyo siyaasadda xiriirka siyaasadda wasaaradda dhalinta iyo isboortiga on taasi aan kula garab joogno sidii kubadda cagta tayaha kubadda cagta loo qorqaadi lahaa ama Djibouti ama Soomaaliya ama gobolka ahaatee waxaan leeyahay mar labaad soo dhawaada kadib waxa kulankaasi ka hadlay Cabdiqani Siciid Carab oo isagoo xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waxa uuna ka warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay tababarkani garsoorayaasha Soomaalida waxaan si guud ugu mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta ee Djibouti walaalaheen mahadcelintaas ka sii ballaaran oo niyadana waxaan u direynaa dawladda Djibouti iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga oo ay markasta aan ka daaleyn in ay noo ogolaadaan oo nagu soo dhaweeyaan mar walba shuruud la'aan in Soomaalida kubaddeeda cagta wixii ku saabsan lagu qabto dalka Djibouti baad kulligiin dareemaysaan ilaa airportka aan ka soo galno ilaa hooleena aan ka qabsanayno ilaa aan ka noqonayno goobaha isticmaalayno inay dhammaantood aysan wax shuruuda noogu xirnayn nalaguna soo dhaweynayo taasoo na gelisay macnaha dareen ah in dalkan uu yahay dalkeeni oo kale kii labaad inuu yahay sidoo kalena mahadcelintaas waxaa daba socota maanta aqoonta gaartay Soomaaliya garsoorkooda iyo macallimiintooda intaba intii iyo kooxeeni halkan ku ciyaaray ma aanan gaari lahayn horumarkaas haddii dalka Djibouti aanan ka heli lahayn soo dhaweynta iyo goobaha aan wax ku qabsanayno Axmed Shalaawi ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay arkaan Soomaaliya oo mar kale cagiheedii isku taagaysa waxa uu sheegay in aanay ka walwalin garsoorayaasha iyo madaxda kubadda cagta Soomaalidaba inay heli waayaan tababar ku filan sidoo kale waxa goobtaasi ka hadlay Cali Siciid oo isagu gudoomiyaha xiriirka caalamiga ee kubadda cagta Soomaaliyeed waxaan u nimid inaan kororsano aqoontii mar walba isbeddelaysa aqoonadu waa isbeddelaan mar sanad walba isbeddelaan waxa meesheedii lama taagno isbeddel baan u nimid inaan wax qaadano anagana aan dalkana gaarsiino ardada marka refereega meesha fadhiya ma ahan kaligood inay qaataan waxa loo keenay meeshan inay u gudbiyaan meelahay ka yimaadeen inta ayaga loo gudbiyo inay u gudbiyaan anoo khudbadayda sii wadaynin waxaan maanta ku soo gabagabeynayaa kooraskii waa noo furan yahay Kaal Cabdirashiid Bare telefishinka qaranka Soomaaliyeed Djibouti